golaha deegaanka ee degmada Berbera ayaa maanta fadhigoodii horeeyay ku doortay maayar inuu noqdo Cabdishakuur Maxamuud Xasan Cabdishakuur Ciidin oo ka soo baxay xisbiga Ucud halka ay maayar ku xigeenna u doorteen Baasha Cabdilaahi Ibraahim oo loo yaqaano Yacquub oo isaguna ka soo baxay urur siyaasadeedka wadani iyadoo ay si aqlabiyada ugu codeeyeen xildhibaanada maanta ka soo xaadiray xarunta maamulka gobolka Saaxil iyadoo codeynta duqa degmada Berbera loogu codeynayay uu goobjoog ka ahaa gudoomiyaha gobolka Saaxil Maxamuud Cali Hayste Ramax waxaase doorashada maayarka degmada Berbera iyo ku xigeenkiisa lagu dooranayay hakad galiyay buuqna badanna ka dhaliyay xarunta maamulka gobolka wasiir ku xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha ee qaybta amniga Cabdilaahi Abakar Cismaan oo isagu isku dayay inuu gabi ahaanba majara habaabiyo doorashada lagu dooranayay duqa degmada Berbera iyo ku xigeenkiisa waxaanu hogaamintii fadhiga lagu dooranayay gobolka Saaxil isagoo gabi ahaanba qaybaha warbaahinta isku dayay inaanay doorashadaasi farta maayarka iyo ku xigeenkiisa ku qabsaday gudoomiyaha gobolka Saaxil isagoo gabi ahaanba qaybaha warbaahinta isku dayay inaanay doorashadaasi fartaaga ah aanay wax sawira ka qaadan waxaanu buuqa wasiir ku xigeenku meesha ka kiciyay u dhacay sida tan intaa kadib ayay doorashadii maayarka iyo ku xigeenkiisu si rasmi ah goluhu ugu codeeyeen iyadoo uu wasiir ku xigeenkuna warbaahinta albaabka ka taagan yahay waxaanay maayarka degmada Berbera loo doortay iyo ku xigeenkiisu warbaahinta kula hadleen xarunta maamulka gobolka horteeda iyadoo uu gudoomiyaha gobolka Saaxilna sheegay inay doorashadaasi si sharci ah u dhacday waxaana ugu horeyn halkaasi warbaahinta kula hadlay maayarkii hore degmada Berbera Cabdalla Maxamed Carab oo isagu sheegay inuu maanta aad ugu faraxsan yahay 10 sanadood dabadeed inuu maanta xilkii ku wareejiyo dhalinyaro cusub oo dadku soo doorteen sidoo kale waxa uu sheegay maayarkii hore degmada Berbera inay faragelin baan ku hayso xukuumaddu golaha deegaanka ee degmada Berbera waxaan aad ugu faraxsanahay inaan maanta halkan ku dooranay dhalinyaro cusub oo la soo doortay oo loo doortay Cabdishakuur Ciidin maayarka ugu bishaarana gobolka Saaxil inaan si wanaagsan ula shaqeynayno wareejin wanaagsan u sameynayno waxaan guul rajeynaya guul uga faa'iideynayno soo dhawaada gama wanaagsan ka baahan yahay isbedel saarkaan si horumarka sifa sharciya ayuu magacaabay waxaan saleenay xukuumadda kursiga waa lagu kala reeyo doorasho ku timaadeen faragelinta halagada ay golaha deegaanka waxaan ku weydiinayaa imise xildhibaan ay ku doortay xildhibaan iyadoo kooramka buuxo ayaa wasiir ku xigeenku maareer dagaal iyo gacan ka hadalba ku sameeyay waxaan soo ballan qaadana sida isagoo gudoomiyaha gobolka fadhiya si sifa sharciya inaan gacanteedna loogu doortay gudoomiyihii gudoomiye ku xigeenka